shirkadda isgaarsiinta ee Nishin qaybteeda degmada Woodward ayaa deeq gaarsiisay dhismaha masjid jaamaca degmada Woodward ee dabaqa ah. shir jaraa'id oo lagu qabtay afaafka hore ee masjidka ayaa waxaa shirkaasi iskugu yimi culimaadudiinka cuqaasha deegaanka waxgaradka iyo xubno saraakiil oo ka socda shirkadaasi. shirkaro markaasi uu ka hadlay gudoomiyaha shirkadda dhanka degmada Woodward Xasan Cismaan ayaa ku wareejiyay guddiga dhismaha masjid jaamaca degmada Woodward 100 xabo oo sibir ah saaka oo ay bishu tahay 20 bishii 2014 waxaan sharaf noo ah mas'uuliyiinta iyo uqaasha iyo nabadoonnada iyo culimada iyo aqoonyahanka ka soo jeeda deegaanka Woodward dhammaantood waa salaamanaa waxaanu ku salaamanaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa sharaf labaad iyo mahadcelin aan u jeedinaynaa markii aanu baahida masaajidka u sheegnay madaxda naga sarreysa waxaan ugu hambaliyeynaynaa ilaahayna uga baryanaa meeshii ay ka soo saareen wax ka wanaagsan ilaahay ugu bedelo deeqda masaajidka ay noogu soo deeqeen iyo deegaanka guud ahaanba 100 xabadood oo sibir ah oo yaalla halkaa annagoo uga wakiila shirkadda waxaanu ku wareejinaynaa wakiilada masaajidka oo u horeeyo Cabdiraxmaan Ciise Xaaji Maxamuud ka waraysa waan ka gudoonay 100 xabo oo sibir ah ayaan uga gudoonay mustajaamaca dabaqa labada dabaqa ee Woodward ee qabiyada hadda la dhisayo ayaan uga gudoonay maadaama aan uga wakiilnahay waan ugu mahadcelinaynaa ilaahay baa mahad iska leh waan ugu ducaynaynaa waxaan idin leenahay wakiilkii noo keenay iyo shirkaddii noo soo gudbisay iyadoo oo 20 bisha maantana bishu waxa weeye 20 muddada yar 24 casha shaqaynaysay oo ganacsigii ay deegaankan ka taagtay oo inta yar u shaqaynayay muddada yar u shaqaynayay ayadoo ku soo dhaqsatay turba wax qabadkii deegaanka iyo bulshada ay maaragtay ay ka dhex shaqaysanayso ay waxtarka keento soo gaarsiisay kana bilowday meel lagu bixiyo meesha ugu qaalisanay oo beedkii Ilaahay ahaa waxa weeye waa deeqad qaalisan hadday shirkada yihiin iyo hadday yihiin dadka muwaadiniinta ee dalka degan iyo hadday yihiin ummadda muslimka ee koonfur iyo waqooyi dhan walba jirta iyo kuwa dabadaha jira mid walba waxaanu ka codsanaynaa inay masaajidka oo dabaqii hadda la saarayo hawshiisina hadda kala baran tahay wixii ay ku soo tari karaan si degdega ugu soo taraan xalay laga afriyo laga afqaadeen heede in aad liibaantid waxaanu ballan qaadaynaa inaadan shirkadaha noogu jirin waxaanu leenahay hadeer waad kulay urateen waxaan leenahay anaga gurinay noo soo kordhiyo waxa soo kordhi karta soo kordhiya waxa nagu soo tari kartaa ka caajisina waan ku ducaynaa ragiga horeeyana waa ku duceeyay si kastaba ahaatee waa shirkaddii ugu horeysay ee markaasi muddo dhan 24 casho ka dhisnayd gudaha magaalada Woodward isla markaasina ku deeqda intan leeg iyadoo ay si weyn u soo dhaweeyeen bulshadu uguna baaqeen shirkadaha kale ee ka howlgada gudaha magaalada Woodward in ay sidaas oo kale u soo qayb qaataan dib u dhiska masjidka iyo hagaajinta tan iyo inta uu dhamaanayo laguna baaqay qurba joogta iyo walaalaha muslimiinta ahba in ay si degdeg ah uga soo qayb qaataan dhamaystirka dhismaha dabaqa ah ee masjid jaamaca degmada Cabdi Somsa TV degmada Woodward.